taliyaha laanta socdaalka jinsiyadaha ee Soomaaliya General Gafo iyo xubno ka tirsan labada gol ee dawladda Soomaaliya ayaa maanta kormeer howleed ku tagay gudaha garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho iyagoo kormeeray diyaaradda Juba Airways oo soo cagareeyay gudaha garoonka taasoo waday shacab Soomaaliyeed oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana kormeerkan uu salka ku hayay tallaabooyin cusub oo dhawaan lagu soo kordhiyay ammaanka gudaha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde magaalada Muqdisho oo ay ku doonayso dawladda Soomaaliya inay dib ugu soo celiso kalsoonida ammaanka garoonka si uu la heer noqdo garoomada caalamiga oo kale wafdigan kormeerka ayaa waxay gaareen qaybo badan oo kamid ah gudaha garoonka kuwaas oo la soconaya howlaha kala duwan ee ka soconaya Aadan Cadde International Airport waxaana sidoo kale warbixino ka dhageystay saraakiisha ammaanka si loo adkeeyo nabadgelyada dadka ka dhoofayay kuwa ka soo degaya garoonka intaasi kadibna waxaa saxaafadda halkaas kula hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo taliyaha laanta socdaalka jinsiyadaha Gafo waxaan ku soo dhaweynaynaa garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle wasiirada oo ka soo qayb galay dhibaatadii gaartay garoonkan oo ka soo kabatay inay nala arkaan security ay arkaan si loo hagaajiyay diyaaradaheena ay dib u soo noqdeen oo shaqadii bilaabatay sababtoo waxaan rabaa marka hore aanu mahad celino diyaaradaha Juba iyo Daala dadkaas oo muddo dheer oo dhibaato fara badan dalka ka jirtay soo shaqeynayay maantana aan hakinin dhibaatadii yareedna soo gaartay sababtoo waa dad wadaniyiin ah dadkooda u shaqeeyo dalkooda u shaqeeyo mar hore dhibaato jirtana saan uga shaqeynayeen hadda dhibaato dhacdana wali dhaqmay dhigina waa ka soo kabsadeen waana kuwa shaqeynayo marka waxaan rabnaa qof kasta oo Soomaaliya nabadgelyada ayada annaga ku nool ayada nuguma noolo sharciga annaga ku nool asaga nuguma noolo haddaan sharciga dhowrno nabadgelyada ilaalino wax walba waa noo hagaagayaan waa ku faraxsanahay inay dib u soo noqdaan falaydadii tooska ahaa ee xiriirkii aanu adduunka la lahayn Dubai iyo lagu tagi jiray adduunka inay soo noqdeen oo dadkii Soomaaliyeed iyo dadkii ajaanibta ah ee dalkan imaanayay ay hadda heli doonaan falaydadii Soomaaliya keenay waxaanu aad ugu faraxnay sida uu u socdaan howlaha amniga ee airportka sida iskaanka iyo amniga kor loogu qaaday sida dadka loo wacyi geliyay ee ay ugu hoggaansan yihiin amarada iyo amniga airportka sida ugu hoggaansan yihiin waan ku amaanaynaa Juba iyo Daalo oo sida uu sheegay iyo kambaniyada Soomaaliga ee muddo badan soo waday adeega xagga duulimaadyada ay u hayaan Soomaaliya inay maantana sidaan ugu dhiiradeen oo diyaaradda qiimahaas leh ay keeneen oo ficilada fulaynimada argagixisada ah aanay u hoggaansamin ee go'aansadeen inay dalkooda u shaqeeyaan annaguna dawladahan waxaanu ballan qaadaynaa inaanu amniga sugi doono Hawsar Cabdiraxmaan Cilmi Faray oo Cable TV garoonka caalamiga ee Aadan Cadde magaalada Muqdisho